amal bangi waxay waday muddo laga soo bilaabo sanadku markuu ahaa 2015 ilaa iyo maantada aan joogno oo ah 2020 muddada 5 sano barnaamijkaas wuxuu u baxayay in sanad walba ugu yaraan la siiyo 3 ilaa 4 dufco oo kamid ah ganacsatada yararka ah sida ay uga faa'iideysan lahaayeen oo kubcinta ganacsigooda ganacsatada yaryar ee ka faa'iideysatay barnaamijkan tiro koob ahaan waxay gaarayaan ilaa 600 oo ganacsi oo yaryar oo magaalada Boosaaso ka jira runtii barnaamijkani inta aan ka record gareynay wuxuu leeyahay waxtar iyo wax ku ool taaban karo oo ku soo xiraya bangiga ganacsatada yararka ah inay kobcaan oo baraaraan bangigu wuxuu ka mid yahay meelaha u taagan inuu gacan qabto ganacsatada khaasatan amal bangi waxay gaar mar walba u tahay inay qabato gacanta ganacsatada yaryar sida u soo kobcin lahaayeen maalgelintooda sida u soo kicin lahaayeen barnaamijkooda ganacsi si ay u heli lahaayeen kayd iyo baraare ka muuqata shaxda ganacsi ee qof kasta oo ganacsi ku maro qof kasta oo ganacsi baraara maraa wuxuu maraa shax ah inuu wax kaydsado wax amaahdo kadibna wax maal gashto haddii aadan helin meesha aad ku kaydin lahayd ama cidda ku maalgelin lahayd waxa ka maqan gaab ama farq baa u dhaxeeya inaad gaadhid guusha aad higsanaysid salaanka bacdi aad baan waxaan ugu faraxsanahay 14 jeer oo la qabtay kulay in badan oo kamid ah inaan ka soo qayb galay oo hadda aan tirada garanayn amalna waxaan uga marxaanti kacaynaa inay dhalinyarada iyo gabdhaha iyo wiilasha markii hore wiilasha ku jiray hadda gabdhaha ay badanka u badiyaan ay aad ugu soo qaadeen kor ugu soo qaadeen oo maal geliyeen bangiyada kalena waxaan leenahay war ku daydo oo dhalinyarada iyo sida ganacsigu u kobco ku soo qaada sida la sheegay waxa maanta sanadka iska leh gabdhaha jaamacadaha dhigta oo kor loo soo qaadayo arintaas waa arin aad u fiican gabdhaha jaamacadda dhiganaysa inay ganacsigeeda ku jirto ganacsi hore u mariso waa arin aad u fiican oo arintaas waxa weeye hadda waxbarashadii bay kor u qaadaysaa niyad fiican bay u helaysaa markasta oo lagu maal geliyo oo bangi ama maalgasho kor oo ganacsiga kor u kaco waxaad hamigaaga iyo wadan jacaylkaaga iyo shaqadaada iyo niyadaada kulliba kor bay u kacayaan marka anagu amal uga mahad celinaynaa idinkana waxaan leenahay ka faa'iideysta fursadda qaaliga ah waxaan filayaa waxaan u maleynayaa waa bangiga kaliya oo u taagan inuu qoyska iyo qofkaba horumariyo una taagan inuu bulshada doorka ay ka leedahay uu ka qaato waxaan idin leeyahay hambaliyo waan idin hambaliyeenayaa mar walba insha Allah waxaan bogaadinayaa inaad horay u sii socotaan baahi walba oo bulshada idinkaga aadanna aad kaalinteena insha Allah ka qayb qaadan doontaan annagana waxaan leenahay insha Allah inaanu siday tahay uga faa'iideysan doono meelo badan ba ka qayb qaadataan haday tahay shaqaalaysiintii dhalinyarada la shaqaalaysiinayay haday tahay hooyooyinkii haday tahay abuuridii dakhliga runtii waxaan u maleynayaa kaalinta aad qaadateen bangiyaal kale badan waan ku xiranahay inay qaateen u maleynayo inay jirto marka waxaan dhiiri gelinayaa in hore loo socdo dadka kale oo ka soo qayb galay oo barnaamijkan ka faa'iideystana iyagana waxaan kula dardaarmayaa sidii looga faa'iideystay looguna tixgeliyay looguna xushmeeyay insha Allah inay iyaguna uga soo dhalaali doonaan kaalintii iyo amaanadii la siiyay waxa aan ugu mahad celinayaa shirkadda amal horumarka ay ka wado arrimaha bulshada iyo taabagelinta qoyska iyo kor u qaadida ganacsiga aniga oo ah shakhsi wax badan ilaa 6 kaalmood ka galay shirkadda amal inay ka qaataan siyaabo kala duwan maalgelin uga qaataan oo fiiyay walina wada horumarna ku gaadhay markii aan bilaabayay shirkadda amal inaan ka qaato maalgeliso waxa aan ahaa dadka ugu hooseeya jaranjarta ugu hooseeya taagan maantana waxa aan joogaa jaranjarta ugu quruxda iyo qiimaha badan ee ugu darajada badan horta anigu magac baan ku darayaa amal waxaan u baxshay ma takriso way amal insha Allah dadkiinaan gabdhahan wax la siiyay waxaan idin dardaarmayaa anu hadda waxaan ogahay wiil maana shambo ma kumbo ka bilaabaan u maleynaya amalka qaatay maanta wuxuu ku jira ganacsatada waaweyn Boosaaso mar walba si ay u gacan qabanayeen waxay gaarsiiyeen ilaa 20 ay deemiyaan marka idinkuna waa gaaraysaan meediina dhist
waxa weeye anu waxaan oranayaa amal ma aha deynta kale bixinayso waxyaalo badan bay ka qayb gashaa waxa kamid ah tabracaadka hadii gurmad dhaco masiibo dhacdo dadka ugu horeeya way shirkadaha ugu horeeya kamid tahay hadii maaragtay wax la ururinayo dad loo sadaqeynayo si dadka ugu horeeya kamid tahay annagu waa ka wareynaa odayaal baan nahay mar walba ku dhex jirnaa marka insha Allah waxaan leeyahay dhalinyaradu haajisinina barta aad wadaan ka sii wada waa baraaraysaan waa barwaaqoobaysaan guud ahaan waxaan ammaan u jeedinayaa bangiga oo runtii aan dhihi karno waa kaarmiinka bangiga ama kaarmiin banka dunida ugu caansan ee dhanka microfinance-ga marka la yiraahdo kaalintiisa Afrika shaqooyin badan baa hore isu qabtay maalgelino scale badan leh oo maaragtay tii ugu weyneed oo hadda 90 milyan wax ka badan ay ku maalgelisay kii scale-ka hoose ahaa iyo meeshii u hooseysay oo hadda ay marayso oo microfinance marka waxa la dhigi karaa waa bangi shacabku leeyahay oo ah social bank markaan ka soo tagay inta muhiimadeeda waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo microfinance-ga iyo muhiimadda uu leeyahay guud ahaan shacabka iyo guud ahaan kororka dhaqaalaha waddanka microfinance waa tool inta badan loo hormariyay in lagu kaabo horsocodka bulshada iyo guud ahaan kororka dhaqaalaha waddanka waddan walbana uu sameeyo sida wada ogsoontihiinba Amal Bank waxaan u taaganahay horumarinta qofka qoyska iyo ganacsiga qoys markii la fiirinayana waxa laf dhabar u ah hooyada iyo gabadha maanta wajiga 14aad oo inta aan soo wadnay oo 600 qof aanu qardo xasan siinay kulankan waa qardo xasan bangigu waxa waayaan kama faa'iideeyo bangigu waxa uu taagan yahay inaan bulshadeena si qoys ahaan si qof ahaan u taageerno sida darteed waxaanu maanta halkan ku daahfuraynaa wajiga 14aad ee maalgelinta microfinance-ga ah maxaa loo jeedaa marka waxaan oo la jeednaa maxaan u sameynaynaa Amal Bank ahaan waxaan u sameynaynaa waxaan rabnaa dhow arrinba inaanu gabdhaha maadaama ganacsiga yar ay ku jiraan aanu barno kow waxaanu baraynaa sida wax loo kaydsado maadaama bulshada Soomaaliyeed aysan fahansanayn oo moobeelo iyo lacag guri la dhigtay iyo waxa ay inta badan ku mashquulsan yihiin bal horta bangigu wuxuu dadaal dheer u soo gaday juhdi 2015 la soo bilaabay ilaa wajiga 14aad amareen u soo galnaa waxa weeyaan bal inaanu bulshada horta barno oo bulshada laf dhabarteedu la barno kaydsiga maxay muhiimadiisa ay leedahay kaydsiga maxaa wax loo kaydsanayaa maxay tahay sababta bangigu uu arintan dhabarka ugu ridanayo inuu garab istaago wuxuu rabaa inaa horta ganacsi waxa asal u ah inaa wax kaydsatid inaad waxa weeyaan bangiga ku xirantid inaad dhaqaalahaaga kobcisid inaad is hormarisid inaad xisaabta iska saxdid waxa waayaan tababarada joogtada ah uu bangigu idin siinaya oo halka idin kama harayna maanta in daahfurkan la idin ku soo casumay waxa xigi doonta tababar la idin bari doono xisaabaadka waxa xigi doonta in madaxa microfinance-gu idin la soo xiriiro oo idin baro qaabka waxaan waxa weeyaan u maareyn lahaydeen Amal Bank carwadii bandhiga oo madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Diin uu ka qayb galay waxaanu ku dhuyaboohnay inaanu lacag malaayiin gaaraysa aan la garab istaagayna bulshadeena Soomaaliyeed maamulaha iga dambeyn doona maamulaha ayaa ku dhawaaqay tani waa daahfurkii koobaad oo lacagtaasi aan ku yaboohaynay waxa weeyaan waxaan rabnaa inaanu ku xujino mashruucyadii kale ee ragga iyo dumarka dhalinyarada isku jiray dhalinkaab waxa ku xigi doona tacabkaal oo beeraha iyo xoolaha iyo aan ugu tiragalnay marka Amal Bank waxaanu nahay lafdhabarta bulshada ma aanu sheegayno kaliya saxaafad ahaan waxa daahfurkayagii carwada aanu ku sheegnay maantana waa kaan dumarkan oo ilaa boqoleeyo dhaafaya oo qaarna maanta soo ajiibeen qaarna waxa weeyaan ay u saamxin fursad inay yimaadaan barnaamijkan sida la idin sharaxay horay wuxuu ahaa barnaamij u jiray oo bangiga Amal uu soo bilaabay muddo badan laga joogo 6 sano muddadaas waxaan barnaamijkan loo yeegleeday waxay ahayd in aanu dumarka ganacsiga ku jira khaasatan ganacsiga yar yar in loo helo sidii ganacsigooda loo kobcin lahaa
siday u heli lahaayeen talooyin, siday u heli lahaayeen tababaro dheeriya. muddadaas dheer aan ku soo jirnay waxaan is leeyahay magaaladan Boosaaso iyo guud ahaan Soomaaliya dad aad u fara badan oo ilaa 3,000 oo dumar gaaraya ayaa ka faa'iideystay, qaarkoodna ganacsigoodii u kobcay. sidii hadayay idin sheegay Cali, waxaan horay uga soo daafurnay sanadkan gudihiisa gobolada Sanaag iyo Highland oo aanu dumarka ugu darnay, iyagana aan ku darnay barnaamijka kan. waxaan kaloo aan ka furnay magaalooyinka kale ee bari sida Ceel Daahir iyo Carmo iyo Kubdhaxaad iyo Fallujah. dhammaan dadka faa'iideystay barnaamijkaas runtii aad bay u mahadiyeen. waxaan runtii maanta idinku soo dhaweynaynaa in aan barnaamijkan aan u bixinay hodmiye aan sanadka kaga duwanahay sanadadii hore, oo aanu ballan qaadnay carwadii ka ballan qaadnay in aanu sanadka ku soo kordhino maadaama aan horay ganacsiga dadka ugu jiray oo khaasatan aanay kala sooc lahayn, inaan sanadka xooga saarno dhalinyarada jaamacadaha ka qalin jabiyay oo xirfadda ganacsi abuuray ama abuuri raba. dadkaas waxaan u rabnay si aan ganacsigooda u xoojin lahayn. farxad weyn bay noo tahay inaanu maanta halkaan barnaamijkan aan ka soo qayb galno. aad iyo aad baan u bogaadinayaa shirkadda Amal oo run ahaantii sanadka markii carwadii la furayay kulankii furitaanka ahaa ka ballan qaaday inay xoogga saarayso sanadkan hooyooyinka iyo gabdhaha dhalinyarada ah oo jaamacadaha dhameeya in maalgelin loo samayn doono aan faa'iido laga raadinayn iyo mid faa'iido laga raadinayo intaba. marka maanta anaguna waxaan maqraati ka nahay hadalkoodii ahaa in maalgelin loo samaynayo dadka wax bartay iyo dadka kale oo ganacsatada yaryaraba, in maanta hadalkoodii ka dhabeeyeen. anaguna aan goobjoog ka ahayn xafladii lagu daahfurayay barnaamijka isaga. aad iyo aad baan u bogaadinayaa. waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in saa ku sii wadaan, sababtoo waxa weeye dadku waxay u baahan yihiin maalgelin, waxay u baahan yihiin isha dadka ardayda ah oo wax baranaysa oo wax soo barata iyo hooyooyinka iyo dadkuba in gaadiid loo gado raaxo micno samayn bayso. laakiin ganacsatada yaryarka la kaabo, dadka dhalinyarada oo wax bartay suuqa ganacsiga la soo geliyo, waxyaalahaas oo dhan bay u baahanayaan. marka mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan u bogaadinaynaa barnaamijkan shirkadda Amal wado. waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala dad magaalada wax la taaban karo oo soo siyaadiya. annagana waxa waajib inaan cid walba oo ganacsanaysa intuu doono ganacsigeedu halleekaada inaan ku dhiiri gelino, inaan ku taageerno. aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan u bogaadinayaa. runtii waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo bangiga Amal arrintan muhiimka ah oo dadka dhaqaalahooda kor loogu soo qaadayo, weliba sanadka sida hadda jaamacadii sheegayay loogu talagalay gabdhaha jaamacadaha ka baxay. runtii hadee gabadhii oo wax baratay oo haddana loo sameeyo shaqo abuur, runtii waa wax weyn, sababtoo ah dalka waxa ku badan shaqo la'aanta. runtii waa barnaamij wax badan ka taraya khaasatan gabdhaha. shirkadda ama bangiga Amal mar labaad waa mahadsan yahay inuu weliba u soo xushay gabdhaha jaamacadaha ka baxay, sababtoo ah gabdhuhu waa xubin muhiim ah oo runtii markii burburka dalku burburay waad la socotaan oo 80% dadku waxay ku baxsadeen gabdho, ama dibad ha u dhoofto ama meel xoogaha ka soo shaqayso. runtii doorka wiilasha iyagaa ka door badnaa doorkay qaateen. marka mar labaad Amal waa u mahadcelinaya. waxaan u malaynayaa tan inay tahay abaalgud gabdhaha loo abaalgudayo. haddii Amal bangi baa bilaabay, waxaana filayaa dowladda iyo shirkadaha kalena inay ku dayan doonaan haddii la hadmo. hooyadu markasta abaalcelin waa mudan tahay, laakiin haddana in loo sii abaalceliyo oo wixii loo qaban karo loo qabto oo waajib ah, iyadoo haddana dhaqaalaha dalka ay wax weyn ku soo kordhinayso. runtii aad baan ugu faraxsannahay.